St.Cloud ee gobolkan Minnesota lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegayay laguna soo dhaweynayay Barlamaanka cusub ee loo sameeyay maamul goboleedka Jubbaland. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo haweenka Jaaliyadda Jubbaland ee ku dhaqan gobolkan Minnesota, gaar ahaan magaalada St.Cloud. waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen golaha cusub ee loo dhisay Barlamaanka Jubbaland. dadkii ka hadlay ayaa waxa ay xuseen in maamulka Jubbaland uusan ku imaanin ciyaar hase ahaatee ay u soo dhabaradeegeen dadka deegaanka ah ayna ka xoreeyeen cadowgii haystay. sidaas oo kalena waxa ay xuseen in dhammaan dadka ka soo jeeda goboladaasi ay taageeraan maamulkan cusub, Barlamaankan cusub ee loo sameeyay maamulka Jubbaland. dadka ka soo horjeestana ay dhinac looga soo wada horjeesto. Jubbaland ilaa habeenkii qabashadeedii laga qabtay cadowgii fadhiyay iyo caawa oo lagu soo gabagabeeyay Barlamaanka dhismahiisa aan ugu hambalyeynaa. sidaa darteed waa habeen farxadeed, waa habeen aynu dabaaldegayno, waa habeen aynu u ducaynayno, waa habeen aan kala qayb qaadanayno dadka meesha jooga ee mas'uuliin leh, ee baarlamaan leh, ee nooc walba leh, ee bulsho leh, ee ciidamada qalabka sida leh, nooc kasta isugu jiraan aynu kala qayb qaadanayno farxadeena inaguna. 25 sano ka hor waxaynu ahay dawladda saddexaad ee Afrika. maantana nasiib darrayna ku dhacday waxaynu nahay ma jirto. marka waxaan Ilaahay ka baryayaa, aan ka wada baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inay mid noqoto, sharafteedii iyo qarannimadeedii in Ilaahay ku soo celiyo ayaan Ilaahay ka baryaynaa. waxaan salaam u diraynaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, ra'iisul baarlamaanka, anagoo ah ururkii hooyooyinka St.Cloud ee Soomaaliya. maanta weesh u dambeysay way xaqiiqo majlis tashriici waxa la yiraahdaa waa herdejin. waxaan dadka aad inuu fahmaan waa soo kan baarlamaanka hadda gabadha waxay lahayd waxa la yiraahdo mooshin qolada xamar baarlamaanka joogto maxaa mooshin iyo meena xamar qaad laga taagay habeen meena iyo mooshin waa run xaqiiqa. marka baarlamaankan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid mooshin aan maaragtay hadiyo goor 14 soo baxday mooshin baa wala la bulsho. Jubbaland diaspora shanta qaaradood ee adduunka waxay yiraahdeen waxa ugu baaqeynaa dadweynaha reer Jubbaland inay iscafiyaan marka koowaad, ayna ka gudbaan waayihii mugdiga ah oo ay wax qaybsadaan ayagoo mideysan oo waliba isjecel. ma aha in la mideysan yahay laakiin hoos iska neceb yahay. mideynta waxa weeye in la mideysan yahay laakiin la isjecel yahay, lagana gudbo wixii soo dhacay. shalay waxa dhaceen, daraad waxa dhacay, waa laga gudbay. waa siyaasadda cusub soo dhaweey. Barlamaanka Jubbaland ee la dhisay hal qodob oo sheegayna ma doonayna anagu baarlamaan faacilaala oo doonaya meesha inuu mushaar ku qaato. waa inuu noqdaa baarlamaanku mid dadkiisa ama ha noqdo waayeel, ama dhalinyaro ha noqdo, ama culimo ha noqdo, ama caalamo ha noqdo, ama ciidan ha noqdo, qof kasta oo reer Jubbaland dadka turjumaaya noqdaan. haddaynan ka turjumaynin oo ay niman noqdaan meesha mushaar ku fiirsanaya waan idin bedelaynaa. dumarkeena maalin kasta umusha way ku dhintaan, caafimaad ma haystaan, daryeel ma haystaan, cid u daryeesha ma jirto. madaxweynaha uma naxo, urur goboleed uma naxdo, siyaasi uma naxo, wasiir uma naxo, baarlamaan uma naxo, cid u naxdo ma jirto. anaa ku naxaya, anaa intuu taagan. Jubbaland waxay soo martay heerar kala duwan. waxay soo martay waxay soo dhex jibaaxday silsilado taariikheed. waxay u soo dhabar adeegtay duufaano siyaasadeed. balse maanta waxaa Ilaahay mahadi ah in Jubbaland dhisan tahay oo ay qabsatay waxyaabo badan oo lagu faani karo. waxaa Ilaahay mahadi ah in maanta Jubbaland leedahay maamul ku ridi kara dadkeeda iyo dhulkeeda wadada toosan ee lagu gaari karo horumar baraare iyo barwaaqo. ugu dambeyntii ayaa sidaas oo kale waxaa khudbad ka jeediyay gudoomiyaha Jaaliyadda Minnesota Dool Mahad Salaad oo isagu ka warramay in xafladani ay ahayd xafladii ugu horeysay oo qurbaha lagu qabto oo lagu taageerayay Barlamaanka cusub ee loo sameeyay Jubbaland. hadaladiisana waxaa ka mid ahayd sida tan.
dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiina waxaan idin leeyahay abaalkiina manu gudi karno waayo waxaad muujiseen caawa wacdaro annagoo ahayd xalfaddii hal habeen keliya gudaheeda aan ku qabannay markii baarlamaankii la dhisay 15 bishii 16 17 baan qabanqaabinnay caawana dee kuraastii oo dadkii loogu talagalay macnaha ilaa hadda bannaankii bay taagan yihiin waad aragtiin marka ma haddaas ilaahay baa iska leh la'aantiina wax maana qaban lahayn baan dhihi lahaa caawa dhan waa hallaa ninka doolaha baa howl qabtay laakiin anigu waxaan idinku bedelayaa without you guys waxaan samayn kara ma laha aniga waxaan boogaadin u dirayaa ama aan u dirayaa dowlad goboleedka Jubbaland baarlamaanka ay soo dhisteen waqtiga badan iyo juhdi badan bay geliyeen time badan bay geliyeen sidaad marqaati ka tihiin qabiilada badan baa degan Soomaali badan baa degan meeshaas waa nooc walba ay noqoto anigu ma kala sheegayo laakiin Soomaali qabiil aan laga helaynin Jubbaland ma jirto waxaa qadka telefoonka shirkan uga soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland General Fartaag ayaa waxa uu uga mahadceliyay jaaliyadaha qurba joogta gaar ahaan jaaliyadda gobolka Minnesota dadaalka ay ugu jiraan in ay taageeraan maamulka Jubbaland waxa uu ku dhiirigeliyay dadka reer Jubbaland in ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta maamulka iyo deegaanaadka Jubbaland Ahmed Larry Kalson TV magaalada St.Cloud Minnesota